بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan ku bilaabanayaa duco oo qof walba aan ugu duceynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu na waafajiyo oo uuna gaarsiiyo leylat alqadr. asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay dhihi jireen allaahuma balliqnaa shahra ramadaan. waxay ula jeedaan ilaahu bisha ramadaanna gaarsii annagoo nool caafimaad qaba saan u soonno. haddana bisha ramadaan markii ilaahay uu gaarsiiy waxay dhihi jireen allaahuma balliqnaa leylata alqadr, ilaahu leylat alqadrka habeenkeeda ilaahuna gaarsii. haddana waxay ku ducaysan jireen ducadan oo ah allaahuma wafiqnaa leylat alqadr, ilaahuna waafiji habeenka leylat alqadrka. cafwan, marka leylat alqadr, marka laba su-aalaan rabaa inta inaan kaga jawaabo. habeenkaas leylat alqadrka muxuu yahay oo maxaa saas loogu weyneeyey, iyo laba waa goormaa. marka hore habeenkaas leylat alqadrka waxaa saas loogu weyneeyey kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wax ka weyn aan jirin kalaamullah, hadalka ilaahay oo ah qur'aanka kariimka, oo ah kitaabka ugu khayr badan uguna sharaf badan. wa inahu ladikrun laka waliqowmik, kitaabka qofkii barta, xifdiya, fahma, ku dhaqma, dadkana gaarsiiya, ilaahay sharaf iyo karaamo u yeelo. kitaabkaasaa la soo dejiyey, waxaa la soo dejiyey suu u dhammaystiran yahay kitaabka qur'aanka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa isagoo wada socda. habeenka leylat alqadrka la soo dejiyey, waxaa laga soo qaaday min lawxi lmaxfuud ilaa waxaa la keenay asamaa addunya, samadan adduunkaa la keenay. markaasaa markii aayadda ugu horeysa iqra ilaahay uu ka soo qaadayey, ama 5 aayadood ugu horeysa fi suurat alcalaq, ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu bilaabay. markaasaa jibriil ayaa loo soo dhiibayey marba qaarka munaasabka ku ah waqtigaas la joogo iyo meeshaas la joogo, ilaa qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee markaasi tadriijiyan si ay u kala horeeyaan aayaadka uu u kala hormariyey. qur-aanka saasuu ku dhammaystirmay, laakiin qur-aanka muxuu yaalay markaasi asamaa dunya. qur-aankao dhan oo laga soo qaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa oo la keenay samaa addunya, samada adduunka la keenay, ayaa habeenkii la keenay oo la soo dejiyey. samada adduunka ayaa ah leylatulqadr. habeenkaas marka wax weynaa dhacayo. muxaadaro kalean kaga hadlaynaa, hadda waxaan ka hadlayna oo keliya habeenkaas muxuu yahay. habeenkaas waa habeenka qur-aanka la soo dejiyey. maxaa caddeen u ah suuratulbaqara, shahru ilaahi subxana wa tacala uu ka hadlay wuxuu dhahay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan. shahru ramadaan waa bishii la soo dejiyey qur'aanka kariimka ah. halkan marka waxaan fahmnay habeenkaas inuu ku jiro bisha ramadaan. aayad kalena fi suurati duqaan inaa anzalnaahu fi leylatin mubaarakatin inaa kunaa mundiriin. aayaddaas ilahi wuxuu ku sheegay waxaan soo dejinnay qur-aankao dhan habeen barakaysan. marka habeenkaasi barakuu leeyahay. qofka habeenkaasi cibaado u soo jeesta oo ilaahay caabuda oo ilaahay u waafajiya, qof barakaysan uu noqonaya. qoyskiisa dad barakaysanay noqonayaan, ilmihiisa ilmo barakaysanay noqonayaan, xaaskiisa xaas barakaysanay noqonaysaa. waa habeen barakaysan, ciddii noolaysan ilaahay uu barakeenayo. aayad kale fi suurati alqadr acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi raxmaan raxiim inaa anzalnaahu fi leylati alqadr. halkan ilahi wuxuu leeyahay qur-aanka waxaan soo dejinay haweenka leylat alqadrka. marka leylat alqadr xaggee waaye, habeenkee noqon kara? marka hore fi suurat albaqara waxaan soo sheegnay in leylat alqadr laga helo xaggee. waxaa laga helayaa bisha ramadaan ee hadda aan ku jirno. marka waa la isku waafaqsanyaa taas, wax khilaafa kama taagno. haddana xadiis ayaa jira rasuulka calayhi salaam markii habeenkaas la weydiiyey wuxuu yidhi waxaad ku dadaashaan alcashr
alawaakhir tobanka dambe habeenadooda ku dadaala tobanka dambe bishan ramadaan oo maanta ay tahay 18 beri sabtiga waa 19 axadda waa 20 habeenkaasi maalinta axadda habeenka isniinta soo galayso 21 ah ayaa waxaan bilaabaynaa tahajjudkii habeenadaas oo habeenka laga raadinayo xadiis kale rasuulku wuxuu yiri waxaad ku dadaashaan oo aad kala raadisaan fil awtaar wasiir yareynina marka hore tobanka dambe qofkii tobanka dambe nooleeya habeenka laylatul qadarka uu helaya haddana qofkii yiraahdo way ugu adag tahay dhowr habeen oo kooban aan rabaa inaan xooga saaro rasuulku wuxuu fil awtaar ka raadiyo tirooyinka kasiga ah waa 21 waa 23 waa 25 waa 27 waa 29 markaas 5 maalmood lagu soo ururiyay markaas haddana axaadiis waxaa jirto habeenka 27 inay tahay laylatul qadar axaadiis tilmaamayso iyo culimo badan oo qabta habeenka 27 habeenkaas laylatul qadarka inuu yahay taasa waxaa keentay dad badan in markaasi habeenkaas ay soo jeedaan ay nooleeyaan habeenkoo dhan cibaado qur'aan sadaqo dikri salaa duco intaas lagu nooleynaya markaasi kadib ayaa culimadu isku khilaafeen hal habeen may joogaysaa ana mise way guurguurtaa habeenkaas quraanka soo degay ma habeen guurguura oo tobanka dambe ama tirooyinka kisiga ah mise waa habeen culimo badan waxay qabaan 27 waaye waxaana hogaaminayo saxaabiga jaliilka Ubayy maaragtay ibn Kacab waxaa sheekhaas iyo culimo badan oo ku raacay xilin waa habeenkaas mana guurguurayo waa habeenkaas laftigiisa culimada qaarna waxay leeyihiin maya lama oga habeenkuu yahay laakiin wuu guurguurayaa marba habeenka 21aad mar habeenka 23 mar habeenka 25 marka qaabku u guurguurayo tafaasiishooda iyo xigmada ku jirto ma sii dhexgelina hadda waxaan rabaa kaliya nafteeda dadkana xusuusiyo qofka mu'minka ah aqli uu ka aqli badan yahay qof kasto waa mu'min waayaba ilaahuba rumeeyay aqliga ilaahu ku rumeeyay ee weyn wuxuu la imaanayaa qorsho qofka ciyaaryahanka ah kubadda cagta markaan soo qaato oo aad u aqaano qofka element wax yiraahdo jirto Talyaani waaye qofku wuxuu qaadanayaa tababar badan soo isku diyaariyo ciyaar uu rabo inuu ku guuleysto qofka mu'minkana habeenkaasi intaan la gaarin hadduu isdiyaarinaya wuxuu isku diyaarinayaa marka waa laba habeen kaliya ka hartay waxa laga rabaa marka kow inaad bilowdo taraawiixda inaad tukato oo qiyaam leyl ah tahajjudkana inaad tukato oo markaas seexato aad soo kacdo saasi kala labada waa qiyaam leyl laakiin tahajjudka waxa qofka inuu seexdo oo soo kaco haddaba inaad bilowdo waa kow laba quraanka akhri inta ugu badan aad akhrin karto ugu yaraan hal juz habeen walba saddex akhri inta dikri aad akhrin karto ugu yaraan 1 dikri subaxdii fajrka kadib min boqol marka la faahfaahin doona صلى النبي لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بقول جرى آخره صدق ذهبين والب صدق به لأن habeenka 27 xooga waa saaraysa tirooyinka kasiga xooga waa saaraysa laakiin habeen walba oo soo socdo isku diyaari lacag u qorshe $10 waa $100 $5 reer markan la hadlaya waa $50 habeen walba waayo waxaad rabtaa inaadan miskareynin tobankaas habeen barakadooda iyo khayrkooda waxa kaloo sameynaysaa duco aan kala go' lahayn qisooyin aan ka sheekeen doona xalaqaadka soo socda oo ah dad habeenkaas ducaystay oo Ilaahay u waafajiyay oo waxay rabaan ay heleen habeenkaasi waa habeenka waxaad rabtid ay helaysid malaa'iga joogta jibriil ayaa habeenkaas soo degayo tatanazzalu almalaa'ika والروح ملائكة لنا سود جيسو والروح وجبريل مركاسي وين لا جوغايان إلا حتى مطلع الفجر إلا فجر كأكد لاعه وين لا جوغايان مركاسي بحايان آمين تاني آمين دهايان وينو دعينايان اللهم اغفر لهم وارحمهم يكون دعينايان
إله وحي ربان وأقبر يكدو عنايان وهبين كاس هداد وافقضو إلهي كوافجيو إلهي وحد ويدسته هداد دي منتهي إلهي الدين توكا قذايا هداد حاستهي أو عرور آذان لحين عرور دون آتا إلهي عرور كسينايا هدا ويل قبر راذينايا مؤمنة قانتة تائبة عابدة صالحة ذاكرة قبر نعاس وكلاء تقية وليد إلهي هبين كاسو كسينايا هداد تهي قبر راذينايسو ويل مؤمن قانت طائب عابد حافظ أولياء الله أتقياء كمد وإلهي سبحانه وتعالى وبركي إله كسينايا حداتا يقف شقة دونه شقة حلال أو بركة بدن أرادنا يسد إلهي وكسينايا حداتا يقف وحبرانايا أو جامعات ديكتا أما اسكول ديكتا أو أضربت إنا نقطة أرضي كوات إلهي وكاديايا حبين كاسي مرك حد إسو دياري قرشا سمايسو حبين كاسي شانتاس قرشانية aan idin soo jeedinayaa inaad qorshaysataan qur-aanka digri badan habeenkaas in akhrisaan duco badan oo aan kala go' lahayn waxaad rabtaan ilaahay weydiisataan sadaqo inaad ku tala gashaan oo si joogta u bixinaysaan sadaqadaasi iyo salaadii oo ah tahajjudka qiyaamul-leylka u soo kacaysaan masaajidka aad aadaysaan iyo salaada taraawiixda aad tukanaysaan labadaba qiyaam ilaahu subxaanahu wa tacaala nawaafiji habeenkaas hadduu ilaahay ku waafajiyo camal kasta aad samayso waxay u dhigan tahay adoo 83 sano camalkaas samaynaya halkaas habeen oo keliya $100 oo sadaqaa bixsatay waxay la mid tahay adoo habeen walba $100 83 sano adoo habeen walba $100 oo sadaqa baxsanaya lidaalika qisa dheer waaye ay ku timid in ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la siiyo habeenkaas ilaahu nawaafaji والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.